Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan maanta waxaynu soo qaadan doonaa rikoorada uu sameeyey Lionel Messi iyo sidoo kale Mbappe iyo Erling Haaland oo xalay sidoo kale wacdareeyay haddaad ku cusub tahay nagu soo biir haddaad hore noola joogtiin like iyo share noo dheh waad mahadsan tahay aan ku bilaabnay marka Messi xalay wuxuu sameeyey rikoor cusub rikoor kalena waajibiyey Messi xalay wuxuu sameeyey ninka ugu gool dhalinta badan koobka adduunka rikoorkiisa ayuu jibiyey oo kaasoo lagu magacaabay Marles Kloof oo haystay 16 gool halka Messi xalay uu la simnaa 16 ayuu haystay balse markuu labada gool Ustri uu ka dhaliyay saas wuxuu ku noqday ninka uu gool dhalinta badan ee koobka adduunka laga soo bilaabo 1930 ilaa iyo maanta la joogo 2026 Messi ma jiro ciyaariyaan ka goolal badan ee dhaliyay koobka adduunka oo aanan ahayn Lionel Messi wuxuu haystaa 18 gool iyagoo laba kulan uu ciyaaray dhaliyay 5 gool taasina waxay ku tusaysaa in Lionel Messi uu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee dunida Messi waa ninka ugu gool dhalinta badan ee koobka adduunka waa ninka ugu badan ee haysta Ballon d'Or-ka sidoo kale waa ninka ku guuleystay Copa America sanadkii 2021 iyo 2024 sidoo kale waa ninka ku guuleystay koobka adduunka sanadkii 2022 sidoo kale wuxuu ku guuleystay Golden Ball-ka ee koobka adduunka sanadkii 2014 iyo sanadkii 2022 waa Messi waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu qiimaha badan ee dunida jooga sidoo kale dhanka kalena xalay waxa wacdareeyay Kylian Mbappe oo isna nin da'yar ah oo la tartamaya ninkan lagu magacaabo Lionel Messi isagana xalay 2 gool ayuu wuxuu ku dhaliyay xulka qaranka Ciraaq kaasoo ka hor kulanka Ciraaq wuxuu haystay 14 gool oo koobka adduunka kadib xalay 2 gool uu dhaliyay waxay taasi ku naqatay inuu la sameeyo rikoorka ninka lagu magacaabo Marles Kloof oo haysta 16 gool ahaana ninka ugu gool dhalinta badan ee koobka adduunka balse xalay ayaa la Lionel Messi uu la wareegay hoggaanka ninka ugu gool dhalinta badan ee koobka adduunka marka Mbappe waa nin da'yar ah oo wax badan qabsan kara haddana wuxuu jiraa 27 sano marka Messi haday u badan tahay haduu sameeyo 20 gool ama 25 gool koobkan adduunka Messi ma umaleynayo in sanadka 2030 koobka adduunka la qabanayo uu ka qayb gali doono marka waxay u badan tahay in Mbappe uu si noqon karo lambarka koowaad ee ninka ugu gool dhalinta badan ee koobka adduunka maadaama hadda uu haysto 16 gool kalina 2 gool uu ka dambeeyo ninkan lagu magacaabo Lionel Messi oo ah ninka ugu gool dhalinta badan ee koobka adduunka dhanka kalena ma maleysan kartid ninkan lagu magacaabo Erling Haaland isagoo oo wacdaro waaweyn ka wada xulka qaranka Norway kaasoo isagana 2 gool u dhaliyay xulkiisa kana dhaliyay xulka qaranka lagu magacaabo Senegal oo runtii 3-2 ay kaga badiyeen xulkan lagu magacaabo Norway sidaasna Norway waxay ku haystaa 6 dhibcood sidoo kale playerkooda Erling Haaland wuxuu sii marayay 4 gool 2 kulan uu ciyaaray Ciraaq iyo sidoo kale Senegal marka waa inuu arki doonaa Mbappe uu soo jibin karo rikoorka Messi hadda 18 uu haysto kulanka soo socdana ee Faransa waxay u bixaysaa Norway marka Mbappe Erling Haaland waa kuwa xafaaltamaya haddaba adigoo fikradaada ka soo dhiibo kee ayaad u maleynaysaa inuu qaadi doono ninka ugu gool dhalinta badan koobka adduunka hadda Messi ayaa la wareegay ma sii hayd doona Messi mise Mbappe ayaa soo gaari doona fikradaada commentiga inoo reeb waad mahadsan tahay haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar